Soomaaliya waxay ku jirtaa gacanta shacabka Soomaaliyeed, gacanta ummadda Soomaaliyeed. haddii ummadan aysan u istaagin, aysan revolution kacdoon aysan sameynin, ay dhihin war anaga dowlad noocan uma baahnayn, dowlad noocan u baahnay, waxaan u baahannahay dowlad ku dhisan cadaalad iyo xaq oo ka tarjumaan karto mabaadi'da afkaarta iyo dhaqanka Soomaalinimada iyo oo base u ah waxyaabaha ay rumaysan yihiin oo diinta kaalinta koowaad ay kasoo galayso. shacabka Soomaaliyeed maanta haddaysan istaagin, aysan kicin oo kacdoon aysan sameynin, aysan dhihin annaga waxaan u baahannahay dowlad rasmi oo annaga shacabka matali karto, baahida shacabkana matali karto, runtii waxay ku jiri doonaan dhibaatadan, abaarahan iyo waxaan laga hadlayo dhan waxay noqon doonaan wax soo noqdo weligeedna saan waa lagu sii jiri doonaa ilaa la toosiyo tiirarkii dowladnimo ee Soomaaliyeed. maanta markaa u fiirsato shacabka Soomaaliyeed, Soomaaliya gudaheeda markaad u fiirsato dhex wareegto, waxaad soo ogaanaysaa in shacabkiiba aysan kala jeclayn inay dowlad leeyihiin iyo in kalaba, sababtoo aaminaadiya ka dhuntay. waxayba aaminsan yihiin qofka siyaasiga oo maanta ayaga matalo inuu tuug uu yahay, uusan ahayn qof ayaga matalo. xaqiiqdii nidaamkan 4.5 kana keenayo in shacabkii kala aamin baxaan, dowladdiba ay noqoto qof walba inta uu ka lisan karo uu ka listo. hashi maandeeq markii la leeyahay dadka waxay u maleeyaan qof walbaba hasha qayb sida uu maalin karo inuu u maasho. dowladnimada ma aha wax shakhsiyad gaar ah uu maalin loogu talagalay inay maashaan, laakiin dowladnimada waxa waaye wax ummadan u wada dhaxayso, la wada leeyahay, waa hal geel ah oo sida maandeeq oo kale cid walba ay leedahay, laakiin ujeedadeeda aysan ahayn cid gaar ah inay maalato. nidaamka 4.5 Soomaaliya maanta ku jira markaa u fiirsatid waa nidaam aad ka dareemayso in loogu talagalay in cid gaar ay maalato, cid gaar ay macnaheedu mataqaana maaragtay ay dowladnimada bay kusoo koobnaato. qofaa wuxuu rabaa baasboor, qofaa wuxuu rabaa shaqo, waxaa la leeyahay xildhibaankaaga waa kay xagiyaa ku matalo. qofkan aqoontiisa iyo shahaadooyinkiisa ayaa matala, xildhibaan ma matalo, xildhibaan iyo asaga isma yaqaanaan. so waa in macnihii muwaadankan xaq inuu u yeeshaa inuu baasboorkiisa heli kara soona xildhibaan matalin. muwaadankan waa inuu xaq u yeeshaa haddii aqoontan booskan shaqo oo meesha ka banaan inuusan xildhibaan uusan u raadsan ee maarata ay noqoto inuu asaga booska matali karo oo aqoontiisa iyo garaadkiisa iyo garashadiisa uu ku imaan karo iyo kartidiisa. marka dhibaatooyinka inaad haysato kor iyo hoosba way jirtaa, laakiin haddii maskaxda ay bogto jirka intiisa kalama socon karo. meesha annaga ay Soomaali ka bogto waxay tahay qaybta sare bureaucracy-ga, dowladnimadiina waxay u baahan tahay is-aaminaad iyo cadaalad iyo xaq inay ku dhisan tahay. caalamkoo dhan markaa u fiirsatid dowladnimadooda waxaa horumar gaarsiiyey, ummadaha horumar gaarsiiyey waxaa marka hore beyska dowladnimo ay aad u dhistaan, ay ku heshiiyaan, wax raalli ay ka yihiin, ummadda dhan raalli ay ka yihiin, ay wada dhistaan. Soomaaliya maanta folban cid raalli ka ah ma jirin, dad danahooda gaarka ah fiirsanayo, aqli shisheeyo isticmaalayo oon kooda aad u moodo inuu dhintay, oosan lahayn karti ay fikrado cusub, mabaadi cusub, afkaar cusub ay ku curin karaan si ummaddan u badbaadiyaan ma jirto. maanta madaxda Soomaaliya nin walbaba ama kan jooga ha noqoto ama kii hore ha noqoto, dhammaan haddii aad taageersan tahay waxaad ku taageeraysaa waa munaafiqnimo. 4.5 ma aan wax la isku taageeri karo maanta. madaxweyne walba ha imaado ama qabiil cid walba aad ku taageer, laakiin xaqiiqiyan waxaan kuu sheegayaa aniga in adeerkii hadduu maanta 4.5 ku imaado inaanba taageeri karin, maxaa yeele wax aanan cadaalad aanan ku dhisnayn, waa wax oo islaamnimo ahaan iyo dhaqan dunida ka jiraba maarata naga reebaya oon akhlaaqdeena iyo dadnimadeyna hoos u dhigi karo. marka Soomaaliya waxaan rabaa inaan kusoo kooba, waxaan u baahnaa annaga inaan hal dhinac kasoo wada istaagno oo dhinacan kasoo wada istaagana inay noqoto dhinac isbedel iyo horumar inaan ku tilaabsano. waxayna ku xiran tahay inaan istaagna, shacabka gacantooda ayayna ku jirtaa dowladnimada iyo horumarka Soomaaliyeed. aad baad u mahadsantahay. dorad mid baan ahaa dhiroodan baan lahaa dulaan iyo colaada baa laygu shiday. waxaanu doodayaa sabkii la duubsadiyo dibood la maagan yahay, lamaagana dibood la maagan yahay.
deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago deriskiyo adduunka intaanu dooxanaado madago anigu madago qarankanaga madago kuwaan dirnaxayn oo aan damaq lahayn ayaan la diriraya la dir oo waan diidanahay deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan cawaala un dulbaban dangiigsan mayo oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooro mayo kuwaan dirnaxayn ee aan damaq lahayn ayaan la diriraya la dir waan diidanahay deegaanada dhulkayga aanun ku daabin calan cawaalo un dulbaban dankiigsa mayo oo gumaysi dooni mayo qabyaala dooro mayo